توعنا وناكسنا قيارتها وذا ku saaxiibnayo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay waqtiga idin wacnaado ilaahayna ha idin xifdiyo waxa janankeena YouTube-ka aad ka daawataan barnaamijyo iskugu jira arrimaha siyaasadda dhaqanka fanka arrimaha bulshada iyo waliba arrimaha dibadda ayadoo aan idin soo gudbino xoog muhiim ah hadaba hadaad saaxiib nala tahay ilaahay ha ku barakeeyo umuuraha leedahayna ha sahle muuqaalka leegta ku dhufo oo iska daa xaasinimada xaasidka ma liibaano leegtana lacag maaha waxaa idin leenahay kuwa nagu cusub ku furta kambaleelka si ay idin soo gaaraan macluumaadka aan soo gudbino saad u naqatid saaxiibka ugu horeeya ee daawada klibyada aan soo gelino barta YouTube-ka waxaan idin soo gudbin doonaa macluumaad xasaasi ah oo ku saabsan madaxweynayaasha dalalka islaamka qaarkood oo la xaqiijiyay inaysan tukanin salaada taas oo ka dhigan in dad islaam boqolkiiba boqol ah hogaamiyaashooda ay yihiin kuwa ka furtay Allah subhanahu wa ta'ala haddaba arrintaasi ayaan eegi doonaa waxaan faaqidi doonaa waan idin soo gudbinayaa warbixino ku saabsan daraasaad la sameeyay oo lagu ogaaday madaxdaasi dalalka caalamka islaamka madaxda ka ah qaarkood oo la sheegay inaysan tukanin isla markaana ay yihiin kuwa ku mashquulsan tumasho iyo waliba la macaamilka dalalka reer galbeedka qaarkoodna si hoose dhaqaale u siiya dalalka hormaray ee dunida haddaba arrintaasi ayaan faaqidaynaa hadduu Allah awood leh u saamaxo iyo doorka Soomaaliya arrintaasi ay ku leedahay ducada waxaan ka dhigan doonaa qaybaha dambe hadduu Allah awood leh u idmo dalalka islaamka ayaa waxay yihiin dalal leh xukunno ama madax u badan kuwa qaab boqortooyo u dhisan halka kuwa kalena ay leeyihiin madax la soo doorto oo waqtigooda uu cayiman yahay halka wadamada kale ee qaar ka mid ah islaamkana ay leeyihiin kuwa dictator ah oo aan xilka ka degin isla markaana qaab xoog ah u haysta dalalka ay xukumaan waxaana kuwaasi calaaqaad dhow ay la leeyihiin dalalka reer galbeedka qaarkoodna markii waqtigooda uu dhamaado isla markaana laga bogto danaha laga leeyahay waa la qaarajiyaa sida ka dhacday dalalka Liibiya Ciraaq iyo waliba dalal kale waxaana ugu dambeeyay dalalka Yemen iyo Suudaan oo madaxweynayaashooda muddo 30 sano ku dhawaad ah ay haysteen waa Umar Xasan al-Bashir iyo sidoo kale Ali Abdullah Saalax oo hore loo dilay haddaba arrimahaasi ayaan faaqidi doonaa ayadoona Soomaaliya hadda ay ku jirto dalalka boqolkiiba boqol muslimka ah haddana madaxweynahooda uusan dukanin salaada oo ah rukni ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee islaamnimada waxa xadiis nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu ku yiri man taraka salatan faqad kafara qofkii salaad ka taga oo si kasa uu kaga taga waa qof kufriyay haddaba arrimahaas ayaan eegi doonaa intaan Soomaaliya imaanin waxaan eegi doonaa qayb ka mid ah oo hordhac ah dalalka islaamka madaxweynayaashooda ama amiiradooda ee la ogaaday inaysan salaada dukanin isla markaana ay yihiin kuwa ku mashquulsan caawista khamriga iyo waliba tumashada ayagoo aan ilaahay ugu mahadcelinaynin sandalada ilaahay uu siiyey waana qayb ka mid ah ayadoo qayb kale aan idin soo gudbin doonaa hadduu Allah awood leh u saamaxo waxaan ku bilaabi doonaa dalka Sacuudiga oo ah boqolkiiba boqol muslim waa dal leh boqortooyadaasina waa mid dhaxal wadaag ah oo qofka waxa dhaxla wiilkiisa waxa dhawaan boqortooyada Sacuudiga dhaxlaya amiirka hadda talada ugu awoodda badan Sacuudiga haysta doonayana manhajka in wax uu ka bedelo waa Maxamed ibn Salman ninka lagu magacaabo ah nin dhalinyaro ah Maxamed bin Salman ayaa la sheegay in bataatanba uusan tukanin marka laga reebo xiliyada bulshada uu ku dhex jiro kaamirada ay hayso waxaana Maxamed ibn Salman u sii dheer salaad la'aanta inuu yahay shakhsi balwad iska leh balwado waaweyn oo ilaahay xaaraantimeeyay isticmaala Maxamed bin Salman dhaxal sugaha amiirka Sacuudiga waxa sidoo kale intaasi u sii dheer inuu yahay nin lacaga laaluush tiro badan asiya dalalka hormaray sida Mareykanka oo saaxiib dhow ay yihiin madaxweyne Trump gabadhiisa ninka qaba waxaana Maxamed ibn Salman la xaqiijiyay inuu yahay shakhsi taariku salaada isla markaana gooyay xariga ama xiriirka ilaahay subhanahu wa ta'ala adoonkiisa uu la leeyahay Maxamed ibn Salman dhaxal sugaha Sacuudiga waa ninka ugu awoodda badan hadda Sacuudiga waxaana isbedel weyn uu ku sameeyay nidaamka xagga shareecada ee dalka Sacuudiga waxaana dalka Sacuudiga u kala baxsanaa wadaadada iyo sidoo kale boqortooyada hadda uu ka dhigay wadaadada mid si toos
ah ay u hoos yimaadaan boqortooyada oo asiga ayaa maamula waxaana wadaadada mar walba ay iftoonayaan wax hore ay u sheegi jireen inay xaaraan tahay sida heesaha ciyaarista turibka iyo weliba waxyaalo kaloo badan oo culummada sacuudiga berigii hore ay sheegi jireen inay tahay xaaraan masar madaxweynaha dalka masar cabdilcasiis assiisi ninka lagu magacaabo ayaa ka mid ah shakhsiyaadka dalalka islaamka madaxweynaha ka masar oo ka mid ah dalalka ugu badan ee wadamada islaamka oo dadkooda aad ay u tiri badan yihiin ayaa waxaa la sheegaa in dadka ku nool masar ay aqlabiyadooda ay yihiin dad muslimiin ah oo sunni ah waxaana madaxweyne u ah nin lagu magacaabo cabdilcasiis siisi saaxiib dhowna laha israa'il master Sisi waxaa la sheegay inuu yahay dictator xoog ku qabsaday dalka Masar waxaana intaasi u sii dheer dadka muslimiinta uu yahay hoggaanka dhaqankooda ma laha waa nin leh dhaqanka wadamada kale ee reer galbeedka waxaana sidoo kale asigana uu gooyay xariga ama xiriirka kala dhaxeeya Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo waxa la xaqiijiyay inuu yahay nin taariku salaada oo aan tukanin salaada master Sisi waxa intaasi u sii dheer in dad badan uu laayay kuwa badan ay ugu jiraan xabsiyada isla markaana uu ku gumaado xabsiyada gudahooda Sisi waxa si weyn u taageera dalalka reer galbeedka iyo sidoo kale dawladda Israa'iil oo saaxiib dhow ay yihiin master Sisi waxaana la sheegaaba in hooyadiis asalkeedu ay tahay Israa'iiliyad master Cabdilcasiis Sisi waxa intaasi sidoo kale uu waa nin leh balwado kala duwan isla markaana iska dhaaf inuu dugtay aan weligiis kufin oo aan sujuudin waxa sidoo kale kamid ah madaxda dalalka islaamka haysta ee aan tukanin amiirka dalka isku taga imaaraadka carabta ninka lagu magacaabo Sheikh Zayed waxa la sheegay in muddo fog uu yahay amiirka isku taga imaaraadka carabta oo ay u badan yihiin dad muslimiin ah waxaana dalkaasi uu ka dhigay dal lagu tunto isla markaana dadka ay u badan yihiin dad xilligan ka tagay islaamnimada isla markaana u badan dad iska tunta oo iska caba isla markaana waxaana sidoo kale intaasi u sii dheer in hoteelada waaweyn ee isku taga imaaraadka carabta adduunka lagu talxiis tago si lagu tunto hoteeladaasi waana arimo asiga uu baneeyay markuu ka tagay salaada ayaa wuxuu caadeystay Sheikh Zayed ninka la baxay oo magaca sheekhnimada qaatay oo isku taga imaaraadka carabta ka ah amiirka dhaqanka noocaas ah waxaana sidoo kale uu ku hoolan yahay burburinta dhammaan dalalka islaamka asiga iyo sidoo kale amiirka dalka Sacuudiga waa dhaxal sugaha amiirka dalka Sacuudiga Amir Mohammed ibn Salman Sheikh Zayed iyo sidoo kale Amir Mohammed ibn Salman ayaa la sheegay in danaha ay ka midaysan yihiin in koow ay ka tahay inay la dagaalaan dhammaan dalalka islaamka dhulkana la dhigo isla markaana la hoosgeeyo danaha Mareykanka danaha islaamka Mareykanka ayayna awood ahaan u adeegsadaan dalalka imaaraadka iyo sidoo kale Sacuudiga qabashada dalalka islaamka si dalalka islaamka oo dhan loo hoos keeno Sacuudiga iyo imaaraadka lacagaha ay bixiyaan mid la mid ahna lagaga qaato islaamka intiisa kale Mohammed ibn Salman iyo Sheikh Zayed labadooda waxa ka dhaxeeya xiriirka cabista qamriga iyo waliba tumashada waxaana u sii dheer salaad la'aanta in hadii jaraale ay ku mashquulsan yihiin tumasho waxaana dhawaan amiirka isku taga imaaraadka carabta gabi ahaanba ka carartay xaaskiisii Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Soomaali American ah muddo fogna ku noolaa dalka Mareykanka inkastoo dhawaan uu sheegay in baasaboorkii Mareykanka uu celiyay wuxuu ku soo barbaaray Mareykanka oo muddo ku dhow waa muddo qayb ka mid ah umrigiisa uu ku noolaa waxaana la sheegay in uu ku mashquulay wadista basaska Buffalo taasna ay tagantay inuu ka mashquulo salaada barigaasi sidoo ugu mashquulay salaadana ilaa xilligan inuu ka mashquulsan yahay ila muhiim ah ayaa waxay noo xaqiijiyeen oo inoo sheegeen in madaxweyne Farmaajo uusan salaada tukanin marka laga reebo markay hayso kaamirada sida Mohammed ibn Salman ka Sacuudiga oo kale Farmaajo waxa intaasi lagu sii daray oo nin saaxiibkiisa ka ag dhow uu inoo sheegay maalin Ramadaan ah ayadoo la jooga xilliga salaada maqribka ayna agmarayaan masjidka madaxtooyada in uu ku yiri madaxweyne salaada aan ku leexano laakiin Farmaajo wuxuu yiri waxaan dugtay kol hore oo wuxuu ka dhigay in maqribkii uu dugtay casarkii waxaas intaasi sii dheer 3 sano Farmaajo madaxweyne uu ka yahay Soomaaliya hal maalin lama bedelin rooga madaxtooyada Soomaaliya masjidkeeda yaalo waxayna taas ka dhigan tahay inuusan kala jecleen Farmaajo in la dugto iyo in la iska dhaafo waxaana la xaqiijiyay Farmaajo inuu yahay taariku salaad nin gooyay xiriirkii kala dhaxeeyay Allah subhanahu wa ta'ala waxaas Ilaahay ka baryana oo Ilaahay aan weydiisanayna in madaxda dalalka islaamka uu ka wada dhigo madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan
ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan iyo waliba madax kale oo aad u wanaagsan qaybo kale oo madaxdaasi kamid ah taariikhu salaadka waan idin soo gudbin doonaa dhamaantiin waxa idin leenahay ilaahay idin xifdiyo ilaahay idin barakeeyo ilaahay umuraha leedina sahlo allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan faj'al umurana wa umur almuslimina kullaha sahla ilaahu dhamaanteen waxaan ka baryaynaa oo aan ku weydiisanaynaa ilaahu dhamaanteen ba nasug oo adkay xiriirka aan kula leenahay ilaahu waxaan dhamaanteen ba aan ku weydiisanaynaa gargaarkaaga allahumma la maani'a lima a'dayta wa la mu'diya lima mana'ta wa la qadda illa qadayta wa la yanfa'u dal jadd minka al jadd rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al qasirin ilaahu waxaan ku weydiisanaynaa oo aan ka magangelina kuwa sharta dhibaatada iyo lugooyada inala damacsan wixii shar ah oo dhibaataha oo lugooyaha oo inala damacsan ilaahu ku celi waxaan ku su'aalanaynaa ilaahu aan ku weydiisanaynaa gaalmadaada iyo gargaarkaaga ayaan ku su'aalanaynaa oo aan ku weydiisanaynaa dhamaanteen ba ilaahu awlaadeenno xifdiinta awlaadoonka aan ilaahu awlaada u sahal dhamaantiin waxa idin leeyahay waqtiga idin wacnaado wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa sallim taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin